طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore subax wanaagsan saxaafadda waanu salaamaynaa salaanta islaamkaanu ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacab weynaha Somaliland ee 13 Noofambar xuquuqdooda dastuuriga qaatay ee codeeyay codayn xor ahayd oo ay u soo banbaxeen sidii ay ugu dul qaateen ee u codeeyeen waan uga mahadnaqaynaa. ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala, isagay mahadoo dhani u dhan tahay. ilaahay nagu ilhaamiyey inaynu maanta qaranka Somaliland uu taagan yahay meel wanaagsan. waxaan maanta iclaaminaynaa gudoomiye Cabdiraxmaan musharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday 2 maalmood. waxaanu u wargelinaynaa shacab weynahana u sheegaynaa inuu nagu soo dhammaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afgarannay qodobadii aanu ka wada hadlaynay. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo leh jeclo badan ka leh qarankan, turaalana u sameeyey qarankan, ahna mudan inaynu ku wada ixtiraamno meeqaamku taagan yahay. haddaanu nahay komishanka qaranka Somaliland waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aanu wada galnay 2 maalmood siduu noogu dul qaatay, siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha uu u turayo dalkan iyo dadkanba. si degan waayo aragnimo leh ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aananu maxayda u falanqaynay go'aana ku gaadhnay. aan buuggii degmada Berbera ee ahaa buuggii codaynta waanu ka shaafinay, waananu isla qaadanay, waananu ka heshiinay, waananu u sharaxnay, waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba. waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodijeex khaas ahaan degmada Gabiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan. taana waanu isla qaadanay, shaqadiina way noo soconaysaa. sidaasaananu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa. waanad mahadsantihiin.